kusoo dhawaada daawadayaal warbixin aynu ku eegayno hogaamiyaasha Afrikaanka ah kuwooda ugu xaasaska badnaa ee taariikhan soo maray qaaradda. Waxaan dul istaagi doonaa dhowr hogaamiye oo Afrikaan ah kuwaasi oo qaaday tallaabooyin ay ku dhici waayeen hogaamiyaashii iyaga ka horreeyay ee soo maray qaaradda. Waxaa hogaaminaya boqor Mswatiga saddexaad ee waddanka yar ee Afrikaanka la yiraahdo Eswatini, waa kan ugu guursiga badan madaxda qaaradda Afrika. waxa uu noqday hogaamiyihii ugu da'da yaraa ee soo maray dunida markii uu kursiga ku fariistay isagoo 18 sano jir ah 1986. sida dhaqanku uu dhigayo, Mswati waxaa loo igmaday in uu guursado sanad kasta hablaha aan guurka soo marin ee ka qayb qaata habdhaqanka dhowrsanaanta ee lagu qabto qasriga boqortooyada. tan iyo intii xukunka uu hayay waxa uu guursaday 14 haweena. waxa uu furay 3 ka mid ah haweenkaasi, halka mid ka midana ay nafta isdhaafisay. kiiskeeda isdilka ah waxaa lagu sheegay sababo la xiriira hinaase, balse wax badan lagama ogaan maadaama boqortooyadu ay daboolka saartay geerida haweeneydaasi. kaalinta labaad waxaa ku jira Jacob Zuma, madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika. Mr. Zuma ayaa kursiga ka degay markii uu wajahay eedeymo la xiriira musuq iyo wax isdabamarin bishii February sanadkii 2018. Zuma ayaa waxa uu guursaday 6 dumar ah, wadar ahaan caruurtiisu waa 21 qof. welina madaxweyne Zuma waa nin 6 xaasla ah sida lagu daabacay warbixinta. Zuma ayaa ahaa madaxweynihii ugu xaasaska badnaa ee soo mara dalka Koonfur Afrika, waxaana xaasaskiisu ay mid walba bishii u qaadan jirtay malaayiin dollar markii uu kursiga joogay. kaalinta saddexaad waxaa ku jira Jomo Kenyatta, madaxweynihii hore ee dalka Kenya. isaguna waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha soo maray qaaradda madow ee guursaday xaasaskii ugu badnaa. waxa uu mar soo noqday ra'iisul wasaarihii dalka Kenya 1963. waxa uu horey u qabay 4 dumar ah. waxa uu guursaday xaaskiisii ugu horeysay oo la oran jiray Grace Waho taariikhdu markay ahayd 1919. 1942 waxa uu guursaday haweeney Ingiriis oo la yiraahdo Edna Grace Kalaka, balse waa ay kala tageen 4 sano kadib. xaaskiisii saddexaad waxa uu guursaday Mr. Kenyatta 1950 markii hogaamiye sare oo kuwa dhaqanka Kenya ah oo la jeclaaday Kenyatta inuu siiyo gabadhiisa. sidoo kale waxa uu guursaday xaaskiisii afraad oo ahayd tii ugu dambeysay oo la yiraahdo Mama Ngina. xilligaasi waxay ahayd ardayd baranaysay kulliyadda tababarka macallimiinta ee uu wax ka dhigayay. sanadkii 1951 Mr. Kenyatta waana hooyada dhashay madaxweynaha haatan talada Kenya haya ee la yiraahdo Uhuru Kenyatta. kaalinta afraad waxaa ku jira Yahya Jammeh, waa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Gambia. waxa uu isaguna ka mid yahay madaxda Afrikaanka ah ee ku qanci waayay nolosha halxaaslanimada. waxa isaga iyo qoyskiisa loo musaafiriyay dalka Equatorial Guinea kadib markii ay ka saareen ciidamada wadajirka ah ee galbeedka Afrika sanadkii 2017 dalka Gambia. intii uu xukunka hayay waxa uu guursaday 3 jeer, inkastoo odagaan ay kala tageen qaar ka mid ah haweenkiisa markii uu ka bixi waayay howlaha dumarka. intaasi waxaa dheerayd in Yahya Jammeh lagu eedeeyay in uu guursaday haweeney 18 sano jir ah, taas oo dhaliilo kala duwan ay u soo jeediyeen dadka u dooda xuquuqda dumarka. sidoo kale mar waxaa lala xiriiriyay guurka gabar da'yar oo u dhalatay dalka Ghana oo 22 sano jir ah oo si weyn ay wax uga qoreen warbaahinta dalka Ghana. gabadhan ayaa lagu magacaabayay Noor, balse warbixinadaasi oo dhan waa u beeniyay.